gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka Sanaag Maxamed Jaamac Xasan Daadey ayaa xilligan oo lagu jiro waqtigii xagaaga wuxuu deeq afuro gaarsiiyay bulshada danyarta ee ku dhaqan magaalo xeebeedda Maydh. Kan waxaan ku afurinaynaa maanta oo alla bari afuro isugu jirta makrama ay ka mas'uulta masaajidka masjid dacwa Maydh oo ay soo bixisay inaan saahumullah khayr imaaraadka ka tirsan marka waxa weeye afuradii baanu bixinaynaa afuradaasna waxaan ugu talagalay inaan halka ku bixino bisha Ramadaan maasha magaalo waa Maydh magaalo u baahan in musaacadad badan la keeno Maydh magaalo u baahan in musaacadad badan la keeno oo dad badan oo liita joogan ka waxaan u baahanahay dadka muxsiniinta ee wanaagsan inay dadkan runtii aanu maanta aragnay inay magaaladu aad u baahan tahay inay wax u soo diraan wax la soo gaaraan baan rajaynaynaa insha Allah. Sidoo kalena mid ka mid ah qoysaska danyarta agoonta ay duruuftu u saamaxay weydii inay xilligan xagaaga ah kulaylka magaaladaasi uga hayaamaan meelaha qabowga ah ayuu ugu deeqay lacag dhan $100. Cabdullaahi Xuseen Darwiish, shabakadda caalamiga Odweyne News, Ceeri Gaabo.